يا way kala badanaysaa. way farxday waa qosolka way xanaaqday waa oohinta anu way farxdaan silay kulley waayo dad ilaahay markii hore way fiicneed ku soco cabdiqaadirow jawaab intaanay soo celin way mashxaraday alalalalalalag bay ka siisay alalaas waa waree yaa alalaas aa ka dhacday ahaa way mashxaraday markay mashxaraday ayay tiri imisaan isla kiin jeclaa yaa imisaan isla kiin jeclaa anigu ma waxaad moodeen qof aan waxba ogeyn maalinta dareenku isku kiin galay xitaa waan la socday habeenkii inaad guriga hortiisa fadhiisan jirteen waan la socday habeenkii dhan waardiyaan idinka hayn jiray gabadha kale inaad ku soo kacnaan idinka ilaalin jiray idaa waa gaar haydba haa waaba hooye macaane maalintii intii aad gabadha kaxaynaysa inaad halkaa geysay inaad alaabta usoo iibisay waxaan alaaba lacagteeda maan siine aad adigu kaxaysad alaabta usoo iibisay usoo shoobinaysay waan idinla socday islaantu sii eedi aan cidina dirsan bayba ahayd wallaahi waa la jamad islaantaas haye markaa iminkana eedo inanteydii baad ahayd waan ku jeclaa walaalkay baa ku dhalay oon adduunka ugu jeclahay oo mataankaygii ah eedada iyo aabahay markaa waa mataano oo mataankaygii ah oon adduunka ugu jeclahay baa ku dhalay iminkana waxaad noqotay gabadhii boqoradii boqorkaygu qabay gurigana adaa ugu sarreynaya aroos caalamiyana waan kuu dhigayaa gabadhana maxaad uga qarqarinaysaan waan u sheegayaa arooskaaga weliba markaan diyaariyo ayaan u sheegayaa hadday ku gelaysana way ku joogaysaa maseertiriya wixii gabadha xaq u lahayd baa la siinayaa haddaanay ku gelayna way iska baxaysaa laa xawla walaa quwata illaa billaahi alcaliim bal inantaa yareeda la dulminaya ka warama waana cusubtay takale mise carruur haysaa waxay u haysaa markaasunbay laba u dhashay laakiin mudday isqabeen aanay waxba u dhalin laakiin markaasunbay laba carruura u dhashay ilaahay madi ku dheeri manaan dulmi ahayn innaa lilaahi wa innaa raajicuun haya baan nidho cabdiqaadir oo gurigii baan saddexdeediiba hal mar wada galnay gurigiisiibuu iska galay gurigiisii markuu iska galay reerku reer ladan bay ahaayeen islaanta eedayo reer ladan bay ahaayeen iska nimcaysanoo waxa dhacday halkii haddaan faraxsanahay oo de laakiinse xaaladuhii jeexjeexanan socod wanaag ahay socod wanaag oo markaasun aan dareemayo wixii markii duurka joogay xanuun iyo waxba maan dareemi hadda ogaatiin iphone laga soo wacay haa deetana waxaa dhacday islaantii eedaday suuqay gashayoo guri alaabbay soo iibisay way kaxaysaa kaale heblay alaabbaan soo iibinaya ila soo dooqdide hurdadee rabtaa hurdadana rabaa way soo dooqdaa guribay soo dhigta qolbay soo dhigtaa iyadoo sideedii u rakiban oo u moorgaraysanaan la rakibin fadhigee rabtaa fadhigan way soo rartaa gurigay soo dhigtaa cuntadee rabtaa cuntadan way soo rartaa gurigay soo dhigtaa haa gurigu guri weyn weeyaan markaa qol ka mid a ayay alaabtii ku guraysaa weli lama rakibinoo guriga looma hagaajin meeshii la dhigi lahaa war eebaa soo socota armay guriga soo dejisaa hal qol ayay alaabtii oo dhan kusoo gurtaa war hadda ay soo socotaabe markaas gabadhu iyo waxay ku dhahaan hooya alaabtan carruurta guriga joogta ee isaga walaaladiis xitaa ma oga weli cid looma sheegin saddexdeedaas qof nama afareeyo tan la qabay iyadu maxay ahayd iyadu maxay ahayd tan bacad bay ahayd shakiiroo kale ahayd oo fiidka iska seexan jirtay shakiiraha fiidka seexata waxaa ii sawira shakiiraha caajigii laga dulqaaday waxa dhacday halkaa markay maseexata iminka mar horay qaylimayd maya waan kaa xishoonay xishoodkabayaa waad iga weyntaa walaashayga weyn baa tahay waxa dhacday halkaa markay marayso ay alaabtii qolkii lasoo wada dhigay hurdadii lasoo dhigay fadhigii lasoo dhigay cuntadii lasoo dhigay weelkii lasoo iibiyey wax wada cusub qolkii gurigii laga soo buuxiyey qol xoogaa yar weynoo hool yar ahaayo fadhi loogu talagalo marka aan fadhi oolin ba alaabtii o dhan lasoo dhigay cabdiqaadirow deetana waxay samaysay eedaday guri bay iibisay guri 3 maqsin ah oo madbakii iyo suuligii iyo suuli kale iyo brandii balakoonkiisa iyo adduunkiisa saa isugu go'an bay iibisay guriga lagu iibiyeyba guriga ma way cid ay u iibisay laakiin way iibisay markaa yay u iibisay idinla tahay guriga soo qora adkaatay dad waaba cadaabe armay laakiin miyaratir uga dhigaysaa gabadha kale alla markaasan ku farxi laa hadday gabadha kale miyaratir uga dhigto
والله يوم الدعين لا هين guri bay iibisay gurigii markay iibisay ayay waxay samaysay maalintii dambe ayay waxay samaysay cabdilqaadir waxay u yeedhay xoolay soo iibisay waxay soo iibisay dhowr neef oo adhiya ducaan biri leenahay bay tiri hala alla baryo waa la alla baryey wadaadaha gurigii loogu yeedhay sabti baa la kariyey waa la qur-aan baa gurigoo dhan la saaray annagoo dhan baa qur-aan la saaray gurigii baa loo duceeyey wadaadadii waa iska tageen هين cabdilqaadirow waxa dhacday gabadhii guriga deganayd ee ninku qabay ee dangaladay ahayd aan anigu iminka ogahay laakiin iyadu aanay i ogeyn cabdilqaadirow waan idiin soo yar sheeka dhaafaye intanaan alaabta iibinaynay eedo awal waatan 10 habeenimo iyo wixii 11 geedka hoostiisa fadhiisan jirnay hadda markuu iyada soo seexiyo anigu ii yimaadaa qolkaygu yimaadaa يا salaada subax marka allahu akbar xilligii uu tegi jiray unbuu taga لا حول ولا قوة oo kale tan iyada doqonaba horta laga guursado taas waxba ka khaldanaaba gabadha inta laga soo akaco qol kale la tagayo salaad subax laga soo baxay maxay tahay meena odaygeeda laabta ka gali jirin meena isku dhigi jirin meena jacayl meesha oo la iskuma dhege taleefanku hadduu dhamaado qofo dhinac buu sii jeesta ayaa ku yir waa la isku dhiga waxa dhacday deetana laabta ku seexanay faadama iyo wahaba culeyskeeda amaanan daba seexanay wadanku waa kulay laakiin waa la isku dhididay cabdilqaadir waxa dhacday halkaa markay marayso halkaa markay marayso gabadhii baa habeenkii dambe waxay islaantii wiilkiiba u yeedha waxay ku tiri habeen dambe macmacaanlihii kow annagu jacaylkaan kasoo bilownay ayay waxay tiri habeen dambe macmacaanlahaasaan tegaynaa aniga iyo adiga iyo xaaskaaga weyn sheekadaan u sheegaynaa leanna hawshii wayna soo guda gashay gabadhan inaan wareejino oon gelbino ayaan rabaa waa gartay gabadhii buu ku yiri caawa cashaan ku geynayaa aniga iyo adiga iyo hooyo caruurta ka tag guriga ka tag xilliga istiyaari gurigan kuugu imanaya gabadhii way istiyaarisay way labisatay gaadhigii guriga loo soo hordhigay gaadhigii baa lagu qaaday macmacaanihii baa la geeyey macmacaanihii markii la geeyey cabdilqaadirow ee macmacaankii la cunay islaantii eedada islaan af miishaarada bay ahaydoo intay halkan fadhiistay ku tiri hooyo boqorad baa tahay gabadha guriga nugu weyne laga qabaad ahayd intaasoo sanaad nala soo deganayd weligii ceeb iyo xumaan kaamaan arag gabadh miskiina baa tahay gabadh fiidka iska seexata baa tahay gabadh waxaan ku uri maashaallaysan baa tahay intaas markaan kasoo gudbo arrin baan rabaa maanta weyn inaan kuu sheego adnoo ag fadhida ma ima ag fadhiyo laakiin taleefanka ayaan ku jira taleefon yaroo markaa kii yaraa ee la iska wici jiray niclaha ahaa ii sheeg baan ku uri hadhow waxay samayso de waan baqaya gabadhii xanaaqsanaad bay kuu timaada armaa lagu dila arma ila qof wax qaatay baan ahay taleefonkiibuu sameecad intuu garaacay buu saa laynlaynkii guriga soo garaacay buu dhegaysiinaya markaan intaasaan kasoo gudbo hooyo duca qabtoy arrin baa inagu soo biiray arrinkaasaan rabnaa inaan aniga iyo hebel kuu sheegno waxaan go'aansanay inaan kuu wada sheegno wiilkan hebel ahi gabadh buu guursaday gabadha ha guursadee horta gabadh laga guursado maadahayno gabadh wanaagsan baad laakiin calafku waa wax qoran calafku 1 sano kaa wen yahay gabadha uu guursadayna waa gabadha yare guriga joogta ee abtigii dhalay weligeed baana dumar lala soo guursan jiray aniga jannagalihii labuu iga daba guursaday لا حول ولا قوة إلا بان ku dheeray gabadhay hadda halka taaganta caawa oo tahay qofka hadda saacada loo sheegay in odaygeeda la guursanayo maxaa dareemay lagu leeyahay qaadro anigu waan isdaldali la inna xanuun ku sac gabadha yar buu guursaday adigu maamadii gurigaa tahay adigu lafdhabartii gurigaa tahay adigu cid lama sinid anigaba jannagalihii iminka uu iga hooseeyaa labuu iga daba keenay anigoon jeclay inuu iga daba keeno markuu iga daba keenay waan aqbalay waayo ilaahay baa u baneeyey 4 waa kuwaas caruur waaweyn oo kuwan walaalahooda garabkoodii aba magaalada yaacayo meel kasta adduunka jooga
way maanta weheshanayaan kumuu khasaarin haddii uu maanta guursadayna caruurtaada ayar hebel iyo hebla garbahoodii unbuu dhalayaa intaa markaan kasoo gudbo waxaan doonayaa gabadh wanaagsan noqoto gabadh gurigeeda ku adag noqoto gabadh gurigeeda dhaqato noqoto jacaylkan kuu hayaa midaan weligii kuu hayn doono weeye si dahaba intay soo qaado boorso ka saartay tirsidkan dahabka ana adaan kuugu talagalo waa kuu maseyrtir waraaqahanna guri baan kuu iibiyey adigaana kugu qoray caruurtaada guriganna waa kuu maseyrtir horta maasha allah wax fiican bay samaysay gurina way u iibisay intaa waxa kuu dheer alaabtan aad intaasoo sano aad lahayd eed ku jiiftayna waan kaa bedelayaa gurigaaga cusub alaab alaale alaabta aad soo doorato ee aad soo xulato ayaan kuu iibinayaa wallahi islaam fiican bahayd waa wareey allah jannada islaanta ha geeya aamiin dhaha xaqii dhow iska gudday islaantaas ku soco isagii hadalkii qaatay wuxuu yidhi xaaskaygii baad ahayd waan ku jeclaa waad wanaagsanayd aad baad iigu fiicnayd may ahaynaan kula guso laakiin calafka inan taayar waxaweye abtigay dhalay unbaa dee ilaahay baan isku kaayo qoray laakiin aadu marwo sharaf laad ahayd garabkaygii baad ahayd indhahaygii baad ahayd daayahaygii baad ahayd tii noloshay soo bartay baad caruurteeda hooyadood baa tahay gabadhii aabay iga dhigtay baad ahayd laakiin iminkana raaligelinta iyo xaalkaas ayaanu kuugu talagalnay arrinkaa inaan kuu sheegno intaad banaanka adigu ka ogaan lahaydna waan ugu talagalnay okay haddaba su-aasha waxay tahay hablow ma ogolaan laydeen guri baa laydin siiyey dahab baa laydin siiyey ma ogolaan laydeen yes or no waan ogolaan lahaa waa qosolka ma ogolaadeen waa oohinta ku soco cabdiqaadirow gabadhii horta way xanaaqday oo way naxday oo sidii wax soo qabsaday oo kale noqotay laakiin maadaama gurigii loo dhisay na la yidhi guriga intaasoo maqsina laba suulile madbakiisii balkoonkiisii haddana waan kusii marinaynaa gurigaaga adigaa iskale warqadaadii waata dahabkaagana adigaa iska leh alaabtana berri baan ku kaxayn ayaan kuu soo iibinaynaa ya alaabtana berri baan ku kaxaynaynaayo alaab alaale alaabtaad adigu doorato ayaan kuu soo iibinaynaa haye hablihii waxay wada ogolaadeen inay ninkii la joogaan alla lacagtu lacag is not easy money is not easy is not easy guri lagu siiyey xaliimooy kuusayey is not easy dhammaantoodu joogeenba laydinku dhufay ku soco cabdiqaadir way ogolaatay gabadhii haye bay tiri gurigii bay timi way iisoo gasho qolkaygii waxay ku tiran kugu soo dhaweynayaa nolosheeda inaad kusoo biirtay nolosha xaajigayga inaad kusoo biirtay markii hore dumaashiday baad ahayd haddana dangaladay baad noqotay welcome soo dhowow haye ragga waad maqlaysaan haddaad gabadha rabtaan la guursataan way fududahay dahab iyo 2 qoloo jiingadan u dhis way maqashaan ragow ku soco 2 qoloo jiingada ah of course gurun bay rabaan jiingada ma xira digaag baa markaa aniga ma xira digaag badigu xiran digaag baan ula ekaanay raggi deedna waxaa dhacday aroortii bay islaantii kaxaysay gabadhii hurdada iyadu soo dooratay fadhigay soo dooratay cuntaday soo dooratay ilaa weelkii maacuntii cuntada waxay wax ku karsanaysay fargeeta u yaro wixii hore maaha wax cusub baa loo soo iibiyey $200 way siiso waxay ku tiri mariya kusoo iibso cabdiqaadir oo gabadhii gurigii baa loo rakibay boorsadeedii dharka iyo boorsadii dharka caruurteeda unbay qaadatay iyo boorsadii xaajigeeda gurigeedii bay u wareegtay maasha allah haye gurigii baa la ranjiyeeyey alaabtii iyadu ka guurtay baa la bixbixiyey waxa iyadu bixinaysay iyo wixii islaantu bixinaysay baa alaabtii waa la bixbixiyey gurigii baa la ranjiyeeyey qolkii ay deganayd iyo qolkii ku xigay ayaa laga sharaxay adkaatay haddaba guys hadday sheekadu bilaabmaysaa hadday macaanaanaysaa marka intaas waxay ahayd guud markii in gabadhii lala guursaday in la ogoleysiiyey in la siiyey madaxeedii waxeedii dhanaa maxaa ku xiga hadda haddaba adkaanaysaa marka let's go inamari faadmo qolkeedii iyo qolkii ku xigay baa laga sharaxay aroos baa laga tumay durbaan baa laga tumay dig baa laga tumay waa lay soo gelbiyey gurigii baa laga keenay 3 baa haddana laga tumay 7 baa laga tumay yaa hinaasi doonaa 7 iyadoo xafladii la tumayo oo ay dadkii faraxsan yihiin oo la ciyaarayo
oo dadka dee ay iska xamaasaysan yihiin oo bahal sida aan xidhanayo halkan fadhiyo aanay iga qasnayno inankiina uu ag fadhiyo noloshu ay noo hagaagsan tahay oon faraxsannahay ma adkaanaysaa lootarina hadday adkaanaysaa si toose lootarina aan xaraynay intii hore oo lootari yaroo edab darani meelaha ka dhex dhaqdhaqaaqayo ayaa halkan kursigan ku fadhiyey hoostiisa dhinacan ah kursi ugu kooneeyaan ku fadhiyey qolkan marka aan fadhiyo qol hoola fadhiyo reerku ay lahaayeen buu ahaa kabar yaroo biife iyo dhoobada iyo waxaa loogu talagalay halkaas soo yaalay kabarka iyo kursiga dhexdiisii waxaa kasoo baxday gabadh xijaaban oo naqaaban acuudu billaahi min ashaytaan rajiim qolkii hurdada mise waa qolkii hoolkee lagu tumanayay lagu ciyaarayay waa la jaasayaa waa la tumanayaa muusig baa socdo qolkii xafladii 7 ay ka socotay weeyaan acuudu billaahi min ashaytaan rajiim xagee ka soo baxay markaa gabadhu waxay ka soo baxday dee dadku ma soo gelayeen ma baxayeen dadku ma soo gelay kaadhar laguma soo gelayno meesha waa gurigii dadku ma baxayeen ma soo gelay ma dadkaasay ku dhex socotay ma mar hore meesha ku jirtay gabadh naqaaban xijaab sidata isku siidaysa ama shug oo naqaaban ayaa waxay ka soo baxday kursigii aan ku fadhiyey iyo kabarhka dhexdiisa daaha hoostoodii ayay ka soo baxday acuudu billaahi min ashaytaan rajiim haye ma iyadii baa talow gabadhii markay soo baxday anu gabadhu markay soo baxaysa waan arkayey oo dee indhaha marba saa dadka moola raacay gabadhu daa hoostiisa inay kasoo baxday waan arkayey gabadh dhuuban inay tahay waan arkaa gabadh naqaaban inay tahay waan arkaa gabadhii saa markay usoo baxday ay saa iigu soo laabatay unba waxaan ka war helay wax kulul oo wejigaygaga daatay yaa wax kulul oo wejigaygaga daatay allahu akbar aashato ma ay siir baa wejiga laga shubay subxaan waa wareey samuuradda adkaatay bas ka dhiga toos bay u adkaatay caawaya calamka inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun haye wax kulul oo wejigaygaga daato intaa dhaban sanka bishinta intiisaa hoose dhinacaa weliba xaggii ay kasoo baxday xiga bal wash laygaga siiye haye washtii laygaga siiyey aadii aan lahaa bahal nabaroo halkaa ilaa halkaa igaga dhacay oona garanayn wuxuu yahay baa ii xigay laa xawla walaa quwata toos bay u adkaatay wallaah aadii aan usii foorarsadayna halkaa gagabisada margiyada ayaa iiga sii xigtay surka kadh markaas aniga miir iigu dambaysay oo isagu muxuu qabanayaa maanu ku ag fadhiin faadmo seeru ku weydiiyey waan ku qoslaya maxamed oo isagu muxuu qabanayaa faadmo ku soco faadmo bal halkaa gagabisada ayaa ii xigtay afgembi baan markaa u dhacay markaas aniga iigu dambaysay waxaan soo baraarugay tiyo aan dhakhtar aalo maalintii ku xigtay ay tahay ayaa soo baraarugay ku soco maalintii ku xigtay ku 3 ahayd oon dhakhtar aalo dhakhtar islaantii la joogto isagii dul fadhiyo ayaa soo baraarugay wejigii markaa intan saasuu ii kogsan yahay sidii wax saa u duuduubmay oo kale waxaan ka dareemayaa wejigu inuu saa ii kogsan yahay dhinacan indhahaadaan saa kor u eegay suuniyahayga ilaa halkaa faashid baa iigu xidhan oo madax oo dhan saa ugu duubano faashiddu halkan suuniyahay ka bilaabantaa markaa indhaha markaad saa kor u qaado waad arkaysaa faashid aad hagunku raga inaa lilah wejigu dhan waa lagaa bedelay inta wejiga waxaan dareemaya inuu saa u kogsan yahay uu duuduubmayba weli maan isku eegin muraayad oo ma ogisuu noqday laakiin fiilinkaan ka dareemaya wuxuu yahay inuu saa u duuduubmay oo tawafay wejigu qalalay intaan dhinac deetana cabdiqaadirow maxaa i helay baan ku idhi yaa ku shawaad malinaysaa horta guys yaa waxaan sameeyad u malinaysaan gabadhii baa samaysay oo qosolka qof kale soo dirsatay oo ooyinta cid kale inay soo dirsataa macquul ah ku soco
yaa idilay baan ku ori sidan ii gala ya maxaa i helay in la idilay xitaa markaa ma xasuusin markaasay islaantii igu tiri dagaalkiibaa arooskiibaa dagaal ka dhacayo dagaalkii arooska ka dhacay weeyaan baa ku saameeyey dagaalkii arooska ka dhacay ayaa ku saameeyey ma dagaalkii arooska ka dhacay baa i saameeyey haa maxaa madaxaygaga dhacay madaxa dakhar baa kaaga dhacay maxaa igaga dhacay wejiga halkan maxaan ka dareemaya wax yar baa kaaga daatay wejigo waa laguu dhaya uu ladnaanaya bay eedda igu leedahay markaan israahdo saa u soo kac waan dawaqayaa sidii wax dawaqaya oo kale liyaano dhiig badan baa iga baxay ti meeshii laysku buuqsanaa arooskii yaa dilay maxaa dhacay qaada maxaygii dhiig badan baa iga baxay oo halkaas suuniga laga bilaabo ilaa madaxa kale barhkiisa ayaa i qaraxday imsa misis hurdo taageersan anuu misis hurdo oo taageersanay dhowr